madaxweynaha maamulka Khaatumo mudane Dr. Cali Khaliif Galeyd ayaa soo gaaray magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. madaxweynaha oo ka cudur daartay inuu war-saxaafadeed ka bixiyo socdaalkiisa uu ku yimid gobolka Sool waxa warfaafinta la hadlay afhayeenka madaxweynaha Khaatumo sidoo kale waxa ka hadlay qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ku soo dhaweeyay magaalada Laascaanood. dhanka kale shalay ayay ahayd mar uu madaxweynuhu shir jaraa'id ku qabtay magaalada Kalabayd. Khaatumo Dr. Cali Khaliif Galeyd nabad ku soo gaaray gobolka Sool magaalada Laascaanood wuxuuna joogi doonaa hadii la ahayd dhowr casho wixii wara iyo wixii iswareysi ah markaas insha Allah la kala qaadan doonaa waana salaameynaa deegaanka iyo odayaasha iyo bahda saxaafadda intaba marka insha Allah wixii warar dambana waa inoo ahaan doonaan idinkuna waad mahadsantihiin madaxweynihina waa inoo joogaa وانا الكور قادم دونا والسلام عليكم ورحمه الله. inuu noo yimaado Professor Cali Khaliif Galeyd madaxweynaha maamul goboleedka Khaatumo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa siyaasigii ugu sareeyay gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn waanu soo dhaweynaynaa waanu ku faraxsanahay dhamaantii saxaafadana waa idin salaamaya wixii warana sidoo sheekhu sheegay gadaal buu ka soo siin doonaa والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Abdi Kayse Kalsan TV Laascaanood.